markii saacad 6 saac isku bedesho ayay noqon doontaa sanadka cusub insha Allah ee 2022 saddex guulood ayay gaadhay walaasheen 2021kii habeen hore ugu dambaysay aan ka soo gudubnay waxay gaadhay saddex guulood oo guul adduun iyo guul aakhiraba labadaba aan dhihi karna way isugu jirtaa qaaliladan gabadha la yidhaahdo waxay gaadhay saddex guulood 2021kii saddexdaa guulood middii ugu horraysay waxa weeye ilaahay subxaanahu wa tacaalaa qalbigeeda inuu ka nadiifiyey ka dhex baxday wixii la dhihi jiray fanka heesihii muusikadii ay ka dhex baxday bal ila dhegayso hadalkeeda ayada oo ka hadlaysa ila dhegaysa bal ayadoo dhahaysa fankii baan ka baxay ilaahayna ugu mahadinaysa annagana ilaahay baan ugu mahadinaynaa walxamdu lilaahi rabbialcaalamiin ilaahay horta waa mahadda iskale wixii ugu wanaagsanaa ee maaragtay aa sameeyey waxay ka mid ahay inaan fankii ka baxay arrinka labaad ay walaasheen gaadhay waxa weeye ilaahay subxaanahu wa tacaalaa inuu ku arsaaqay ubad inay yeelatay uur inuu ilaahay uur siiyey oy gabadhii ilmo ilaahay ku arsaaqay ilmaha ilaahay uu ku arsaaqay wuxuu ilaahay ku arsaaqay 2021kii bilowgiisii waxayna dhashay 2021 dhammaadkiisii iyo bishii ugu dambaysay ayay dhashay waa kana ila fiiri ilaahay subxaanahu wa tacaalaa markaba wuu siiyaa allah subxaanahu wa tacaalaa qofka uu wax siinayo yaa tahay ma weyddiiyo ayay soomaalidu dhahaan waa xaqiiqo jirta gabadhaa ilaahay wuxuu ku arsaaqay isla markiiba beddelkii fankii markay ka baxday ilmaha quruxda badan ayuu allah ku arsaaqay maasha allah maasha allah markaasaa uurkii way soo baxay saas dahna raago waa lasoo wadaagay uuraa leeyaa dhahay anoo dee habeenkii oo ku dhahay farxad allah subxaanahu wa tacaalaa qofka uu wax siinayo yaa tahay ma weyddiiyo ayay soomaalidu dhahaan waa xaqiiqo jirta gabadhaa ilaahay wuxuu ku arsaaqay isla markiiba beddelkii fankii markay ka baxday ilmaha quruxda badan ayuu allah ku arsaaqay maasha allah maasha allah meeqaa intay guursato guur samayso intaasoo reer ay sameeyaan aan ubad ilaahayba ku arsaaqin gabadh ilaahay uuna siinin wiil uuna ilaahay siinin labadaba ilaahay isugu darin ma dhalays ilaahay ka dhigo welibana waxaan idiin sheegayaa gabadhani inay soo martay xaalad dhib badan murugo badan ay ku ooyi jirtay musqusha bal ila dhegayso ayada oo ka sheekaynaysa bal ila dhegayso waxyaaba igu xanuunka badnaayna waxay ka mid ahaa in dhii jiro madhalays waaye hadalladaas dad badan ay soo qorqori jiray qolka taas kusoo xiraa uu jira odagayga asagoo iyoogay ama musqusha waxay inoo sheegtay walaasheen xilli inay soo martay kolkii reerka ay samaysay ee ninkan guursatay walaalkeen ah raage markay guursatay raage cabdi in komatiga lagu soo caayi jiray gabdho iyo wiilal ku dhihi jireen madhalays baa tahay raage cabdi naag madhalays ayuu guursaday saad ogtihiinna gabadhu waa gabar da'yar oo wejigeedaabaad aragtaan waana gabar hal mar uun guur hore soo martay dad waxaa jira intaas oo guur soo mara oo haddana ilma aan helin haddana ilaahay ilma ku arsaaqo madhalays baa tahayna aan weligii lagu dhihin laakiin gabadhani waa gabar canug ahoo da'yar oo 20ka hadday gaadhay wax yar u dheer yahay gabadha noocaas ah hal guurna soo martay oo laga yaaba taymkiisiyo wakhtigiisuba inuuna dheerayn haddana in lagu tuhmo madhalays baa tahay ma dhihi karno dadkaasi waxay ku tuhmeen madhalays waa dad horumarka gabadhu ay samaynayso hadday noqoto xagga social mediaha hadday noqoto xagga fankii inay ka baxday iyo macsidii iyo xumaantii intay ka baxday inay u jeesatay xagga khayrka iyo xagga wanaagga inuu shaydaanku ku soo qudinayo oo shaydaanku murug gelinayo oo inuu shaydaanku rabo gabadha murug inuu geliyo
inuu dadkan ku soo dirayo shayaatiinul insi yihiin baa laga yaabaa li'anna qof muslim ah oo iimaan leh oo akhlaaq leh oo welibana innaga soomaalidu dad aad u naxariis badan baan nahay qofka naafada qof waliba markuu arko oo soomaali ihi wuu isbeddelaa qofka ilmala'aantaa markuu arko wuu isbeddelaa qalbigiisii wuxuu noqdaa qalbi jilicsan buu noqdaa laakiin waxaa laga yaabaa dadkan inay yihiin shayaatiinul insi oo shaydaanku ku soo dirayo aniga oon social mediaha ku jirin ayaan qisadan in gabadha la dhibay ah arki jiray wiilal fara badan iyo rag dhallinyaro oo fara badanna ay u hiiliyeen oy dhaheen war gabadha ha laga daaya gabadha dhibkan aad ku wadaan idinku ilaahay maydaan ka imanin ilaahayna wuxuu leeyahay subxaanahu wa tacaala yahabu liman yashaa'u inaathan wa yahabu liman yashaa'u dhukuura aw yusawijuhum dhukraanan wa inaatha wayajcalu man yashaa'u caqiima marka ilaahay subxaanahu wa tacaala albaabkii koobaadee aayaddu sheegtay buu ilaahay ku arsaaqay oo gabadhaa quruxda badan ah maa sha allah ilaahay adeer ha kaa dhigo mid soo korta abti ilaahay ha kaa dhigo mid soo korta hooyadeed anfacda aabbaheed anfacda ilaahay ha kaa dhigo ilmo badan oo wiilal iyo gabdhaba leh ilaahay ha kaa dambaysiiyo faamiligaas ilaahay dartii uga tegay macsidii iyo heesihii uga tegayna ilaahay faraj khayr qaba ha u furo nolol qurux badan oo ka qiimo badan middii fanka oo ka sharaf badan ayuu ilaahay ugu beddelay ilaahu u siyaadi ayaan leenahay waa farxad iyo damaashaad bal ila daawo waxaan aad u jecelahay in yar markaa wadnaba farxaddaa walaasheen gaadhay inaan la daawanno inaan farxaddaa la qaybsanno inaan reaction ku samayno farxadda gabadha walaasheen ay gaadhay alxamdu lilaahi rabbialcaalamiin ilaahay baa jebiyey daalimiintii shalay ku dhahaysay gabadha ma dhalays baa tahay rabay inay shaki kale dhex geliyaan walaalkeen raaga cabdi iyo walaasheen qaaliladan qaali axmed inay shaki kala geliyaan nolosha u kharaareeyaan horumarka u kharaareeyaan ku celiyaan mar labaad intay waswaas iyo xumaan kala qaadaan meeshay shalay ka imaadeen oo dhibaato badnayd macsi ahayd heese ahayd li'anna heesuhu daatadooda muusikada iyo qaawanida dadku ay wadaan iyo gabdhaha isqaawinaya ikhtilaadka iyo isdhexgalka wiilasha iyo gabdhihii ay isdhexgelayaan ay jidhkoodii istaabanayaan ayagoo ajanabi kale ah ayaa xaaraamaynaysa kelimooyinka la leeyahay hadday wanaagsan yihiinna waa wanaag hadday xun yihiinna way xun yihiin laakiin waxa hallaynaya waa maxay ee xaaraam ka dhigaya ee macsida ka dhigaya waa muusikada waa isqaawinta waa ikhtilaadka rijaasha iyo gabdhaha iyo wiilashu ay isdhexgelayaan ajanabiga kale ah ilaahay baa ka soo bixiyey iskaabulanimadka iyo inaadan reer lahaynna waa qayb dhib badan ayaduna indhahay u daran tahay macsiyada indhahay u daran tahay midda urkay u daran tahay oo gabadhii carfoonee ku ag martaba waa sii fiirini waxay u daran tahay xagga dhagaha iyo maqalkay u daran tahay lugahay u daran tahay gacmahay u daran tahay intaba macsiyay gelisaa ilaahay baa ka soo bixiyey shayaadiintiina waa laga guulaystay ilaah muxuu yidhi subxaanahu wa tacaalaa dadkii ahlu baatilkaa markii laga guulaystay waxa weeyaan alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin weeye alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin ayaan leenahay marka reerkaa quruxda badan aan daawanno cunteeda ooyinteeda maqal markaas ma ooyi kariya labada ilmooda labada dhinaca biyiga